Asalaamu calaykum soo dhawaada asxaabta ku xiran channelka. Maanta waxaan duubi doonaa muuqaal cusub. Waxaan kaga hadli doonaa caanaha ugu wanaagsan ilmaha ee la siiyo. Marka haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe noo saar gambaleelkana furo si fiidiyowyada cusub ay ku soo gaaraan. Haddii aad familka ka tirsan tahay hore noola joogtana like iyo share noo saar si dad kale u sii gaaray uga sii faa'iideystaan. Caanaha waxaan ka hadli doonaa caanaha ugu wanaagsan ee la siiyo ilmaha. Cunuga waxa u fiican in caanaha hooyada ay nuujiso ilaa 2 sano oo ka gaarayo oo waxba kale oo caanaha aysan ugu darin. Siiba 6 bilood u horeysan caanaha naaska hooyada kaliya la siiyo wanaagsan oo waxba loogu darin. Haday dhacdo in ay suurtagali weyso kale sida in caanaha hooyada yar yihiin oo kale cunuga aysan dharjinaynin kaafiyeen in maxaa la cunuga nasnuugiisa uu saas u sii fiicnayn oo kale markaas oo kale waa dhici karaan in waxyaalo kale cunuga maxaa la caanoyin kale la siiyo oo markaas danta kugu qasbayso laakiin inta laga maarmi karo oo hooyada caanaha naaska ay siin karta ayada cuntooyinka maxaa la caanaha naaska badiyo ay raadinayso waxyaalo dheer ah waxa jira caanaha naaska hooyada badiyo cuntooyin badiyaan waxaas in ayada raadisa fiican inta xad ay ka maarmi karto caanaha maxaa la caadiga ay ka maaranto hadii laga maarmi waayo ee dhacday in caanaha caadiga la siiyo waxay ku wanaagsan yihiin in maxaa la caanaha ay waqtigiisan yihiin sida cunuga markuu dhasho ilaa 6 bilood oo ka gaarayo in number 1 caanaha la siiyo maxaa la markuu 7 bil bisha 7 ay u dhalato kale in number 2 gooda loo bilaabo ilaa 1 sano oo ka gaarayo marka sanad oo gaar ilaa 2 sano in maxaa la number 3 la siiyo taasi ku wanaagsan ma qurux badan cunuga markuu dhasho caanaha ilaa markuu dhasho ilaa 3 sano caanaha la siiha korashihiisu uma fiicno waxa ka fiican in caanahan 6 bil iyo sanadka iyo ayaa kan ugu korasho wanaagsan ugu nafaqo wanaagsan marka intaas ka soo tagno oo maxaa la caanaha ugu fiican ilmaha la siiyo kala ma ahan in company hiblaayo caanihiisa fiican ama caanaha magacaas la fiican dhaheeno laakiin caanaha ugu fiican waxa uga hadlaynaa ilmaha qaar jirooyin qabaan cunuga jirada soo qabo kala caanahaas u fiican cunuga xanuunkaas qaba caanahaas u fiican sida ka soo qaad maxaa la ilmaha xasaasiyada caanaha laga helo ilmaha jir xasaasiyad ku qaba borotiinka caanaha hadii cunuga aragtid in borotiinka caanaha uu xasaasiyad ku qabo kale ay dhibayso waxa u wanaagsan caana la yiraahdo amino acid based formula caana la u fiican waxa la amino acid based formula marka magaca waxa ka heli kartaa gasaca caanaha magaciisa meesha ku qoran yahay dhinaceeda ku qoranta waxa ku qoran amino acid based formula waxa la jeeyaa caanaha inay samaha qaali yihiin laakiin hadii cunuga caanihi kale uu xasaasiyo uu ku qabo kale uu aadan sii karin cunuga korinshihiisa caanaha kama marmo marka ina kan loo heli kara rajeynaa hadii ka soo qaad cunuga caanaha waxa ku jirta maadada la yiraahdo lactose hadii cunuga caanaha maadada ku jirta lactose-ka uusan xamili karin oo kale uu maxaa la ay ku jiranayo ayadana waxa la siiyaa caana la yiraahdo LF free waxa waaye waa lactose free kuma jirto lactose kan cunuga uu caanaha ku qaada la yahay uu xamili karin kuma jirto oo gasaca caanaha magaciisa meesha ku qoran yahay gaskeeda ayaa waxa ku qoran LF free caana la yiraahdo waxa ku qoran LF free marka waxa waaye lactose free aan lactose kuma jirto waa ka soo qaado kale kan kale oo ah cunuga ka soo qaad maxaa la calooshiisa saaid u adag ama calooshiisa saaid u socota oo maxaa la cunuga shan joogta uu leeyahay ama sax calool adag joogta uu leeyahay ama ka soo qaad ilmaha markii wax la siiyo kale dilaqooda badan yahay ilmaha kulli wada dilqaan laakiin way kala badanaa kartaa sida cunuga dilqiisa duu saaid iyo kale wuxuu dilqu soo wada celiyayo kale uu soo celintiisa ama matagiisa uu badan yahay maxaa la matag badan uu leeyahay caani asisaba markiiba soo celiyaa hadii maxaa la oo calool adeegiisa saaid yahay hadii caloolkiisa socodka shubankiisa uu saaid yahay kale waxa la siiyaa caana la yiraahdo AR formula oo wanaagsan ayagana ilmahaas xaaladaas dhibkaas qabaan hadii ka soo qaad cunuga asagana maxaa la uu ka qabo intifaaqi maqas shadiid oo qabo kale oo maxaa la ilmaha kulli way ku abuuranta maxaa la waa wax rabaani ku simeyn in cunuga maxaa la ayaan ku joogo hal mar ay calooshiisa hawo isku xirto marka wada marka isku xirto cunuga ooyin wuxuu leeyahay maxaa la xanuun badan oo kala joogsi lahayn oo yeelaha marka cunuga hawada ku xiranto kale marka hawadaas cunuga ku xirmayso waxa keeni karta in maxaa la hooyada markuu naaska nuugayo kale in naaska markii u deyso halkii naas 20 daqiiqo inuu cunuga nuugo loogu tala galay si maxaa la waxyaalaha u baahan in uu helo marka daqiiqadaha ugu horeeyo iska caanaha hooyada waa sokor malaha borotiinada cunuga uu ku dhargaayo waa sokor caadi ah cunug energy uu helayo marka waxa laga yaabaa in hooyadii cunuga ay siiso maxaa la
daqiiqada ugu horey kan inta siiso kasoo qaad 10 daqiiqo kale inta iyadoo la gaaray xataa 5 daqiiqo camal naaska kood siiso isla markiiba inta ka wareegsadan kan kala geyso kanna wuxuu ka nuugo sokor kan wuxuu ka nuugo sokor labada sokor markooda nuugo caloosha isugu tagaan wuxuu ku naqahay hawo cunug markuu wuxuu bilaabaa inuu mana yaqaan ilmaha hawada markay qabato kala dadka waaweyn qaab isaga saaran yaqaan cunugan yar qaab isaga saaran ma yaqaan in adiga caawiso ka raba waxa laga yaabaa adiga in markii uu fahmi weysid cunugna uu bilaabo oo inta badan adigana maxaan lahaa uu stress adrentada laga yaabaa marka ilmaha hadii kaasoo kale maxaan lahaa ilmaha xad caadi ah in ayaan ku joogo cunug mar qabatayna qata laakiin haddii aragto cunug inuu joogto tahay oo maxaan lahaa hawadan calooshiisa ku jirta joogto tahay oo intiisa joogto tahay isku rafaadin laba caana la siiya oo xal lahaa mid extra care formula lahaatan kale waxaan lahaa comfort formula way u wanaagsan yihiin ilmaha ayadana oo maxaan lahaa hadii cunuga uu hawada sayidku ku xirmayso calooshiisa kale ay ku badan tahay kale oo wax soo laabahayo nasiina lahayn ay tahay kale in extra care formula ama comfort formula ACC way wanaagsan tahay goormeeta marka inaad ka bedeshid maxaan lahaa caanaha aad dhigi kartaa caanaha waa ka bedelaa cunuga caanaha u bilaabaa waxa dhihi kartaa oo kale cunuga markii uu aragtay in maqaarkiisa kale uu isbedelayo caanaha cunuga dhibayaan in kale waxa lagu aqoonsadaa in cunuga maxaa lahaa shuban badan uu leeyahay in cunuga saxaradiisa ay adag tahay uu saxaradiisa maxaa lahaa maalmo kadib uu hal mar uu saxaroonay laga yaabo in maxaa lahaa maqaarkiisa uu dufka camal sameeyo oo wax dafxul jildi laha jiro oo maxaa lahaa cunug waxaas u joogto ay ku noqoto maxaa lahaa soo celin joogto cunug ama inuu matago ama maxaa lahaa dilaq xad dhaaf oo kala caanihi asiis kulli uu ku soo wada celiyaa jirto xaaladahaas oo kale cunug marka ku aragtid waxa haban inaad ka bedeshid caanaha xaaladaha uu taagan yahay asiisid sida hadii lactose ku dhibayo kale caanaha LF fariiga ah asiisid hadii waxa la soo celintiisa matagiisa uu badan yahay miisaankiisa uu san siyaadeen aragtid meeshiisa uu taagan yahay caanahan AR formula in asiisid hadii hawadan ay ku xirmayso kale extra care formula iyo comfort formula han asiisid hadii proteinka caanaha kale cunug u dhibayo caanahan amino acid based formula ha asiisid saasa wanaagsan laakiin waxa haboon in caanaha marka ka bedeliyo sidoo kale oo caanahan hadda ku sheegaysiinaysid caanahan inta badan qaali waayo kala hadii qofka xaaladiisa famil ahaaneed aysan saacideen oo kale ma qaadan karo ilaa in laga maarmaan ay noqoto meel looga bedelo la waayo maahane ilaa xad hadii uu laga maarmi karo caanahan waa qaali ilaa inta laga maarmi karo in laga maarmi ku wanaagsan tahay laakiin hadii cunuga caanahi uu ilaa u baahan yahay meel kale looga bedelo bedel kale oo san lahayn walaal qasbanaha meesha ay noqoto in caanahi cunuga la siiyo marka hadii caanahan qaadayso waxa wanaagsan in dhakhtar kale tashatid oo adiga kaliya aadan qaadanin si cunuga maxaa la wax walba qiyaasi leeyihiin iyo number in la fiiriyo numberkiisa qiyaasi heerkii cunuga caanahan u baahnaa ma gaariye adiga hooyada waxa laga yaabaa in cunuga caanaha iyo xanuunkii wixii intay kugu soo laabtaan adkaysa weysid waxa wanaagsan dhakhtar la geeyo maxaa la fiirsho heerka caanaha la sii lahaa ma gaariyo cunuga hawo gaariyo markaas oo kale in la siiyo hadda sida proteinka caanaha u dhibayso kale muu baahan yahay heerka caanahan oo amino acid based formula la sii lahaa ma gaariyo hawo gaari dhakhtarka go'aan ka gaari karo waxa wanaagsan inaadan adiga go'aan ka gaarin ee dhakhtarka kala tashatid maxaa lahaa si asaga markaas uu ku raado waa qaadan kartaa marka waxaan rajeynayaa videoga inaad ka faa'iideysateen soo dhawaada subscribe noo sar hadaa cusubtahay hadii familka ka tirsantahay like share noo dheh waxaan rajeynayaa ka faa'iideyn khayr badan